waxaa muddooyinkii u dambeeyay meel halis badan ay dhex jiifto noqotay barta Telegramka kaasoo lagu baahiyay muuqaalo naxdin badan oo halistooda wata kuwaasoo ah muuqaalo anshaxumo tii ugu darneed waxaana halkaasi ka furan boqolaal qolal ama gruubyo lagu baahinayo muuqaalo dumar iyo rag qaawan oo Soomaali ah haba u badnaadeen dumarka muuqaaladan ayaa ah muuqaalo naxdin badan kuwaasoo ah sawirro iyo fiidiyoyo anshaxumo oo laga duubay gabdho Soomaaliyeed gruubadan laga dhex samaystay barta Telegramka ayaa noqday goobo halistooda wata kuwaasoo faafinaya dhaqan xumo tii ugu darneed kuwaasoo noqday meel sharafta hablaha Soomaaliyeed lagu bahdilo sidoo kalena iyagoo qaawan lagu soo bandhigo taasoo dad badan oo Soomaali ah naxdin iyo welwel ku abuurtay halka qof kasta isleeyahay goormaad ku arkaysaa qof aad taqaano goobtaas oo dhex fadhiya arrintan ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay dhibaato baan ku haysay bulshada Soomaaliyeed dhexdooda waxaana Telegramka ka furan gruubo ama qolal gaadhaya boqolaal kuwaas ay ku jiraan muuqaalo kor u dhaafaya 1000 oo laga duubay gabdho Soomaaliyeed oo lagu sameynayo fal dhaqan xumo ah arrintan ayaa wax garadka iyo culimada Soomaaliyeed ay ku macneeyeen inay ka dambeeyaan dad doonaya inay dhaawac xun aanay ka soo wiiqan sharafta dumarka Soomaaliyeed meelna looga dhaca sharafta iyo dhaqanka Islaamka waxaana maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka oo dhan aad looga hadalhayay muuqaal lagu baahiyay bartaas xumaanta u badheedhay sidoo kalena u tafaxaytay meel ka dhaca sharafta dumarka Soomaaliyeed haddaba waxaa saacadihii ugu dambeeyay qabsaday baraha bulshada gabadh masaakiina oo laga duubay muuqaal dhaqan xumo ah kaasoo si weyn baraha bulshada looga hadalhayay taasoo lagu faafiyay barta Telegramka kaasoo dad badan ay aad uga cadhoodeen waxaana la sheegay in ninka muuqaalka foosha xun ka duubay gabadhan yar inuu ahaa nin jacayl ka dhaxeeyay kaasoo maskaxda ka xaday halka dadka qaarna ay sheegayeen inuu maandooriye siiyay sidaasna ay uga duubay muuqaalka ma aha markii uu horeysay muuqaalo anshaxumo laga duubo gabdho Soomaaliyeed misna lagu faafiyo barta Telegramka oo noqotay goob halis badan kaasoo maalmihii u dambeeyay soo tareeyay muuqaalada halkaas lagu baahinayo waxaana mar walba dhacda in ay arrintan noqoto mid soo noqnoqota iyadoona sidoo kale aanay weli ka hadlin culimada Soomaaliyeed ee arrimahan bulshada Soomaaliyeed kaga yaabiyay dhaqan xumada ah dumarka loo geysanayo taasoo inta badan ay geysanayaan dad wata magaca ragga Soomaaliyeed gabadhan ayaa hadda wajahaysa xaalad adag maadaama muuqaalka laga duubay iyadoo fal anshaxumo loo geysanayo waxaana jira dad badan oo si qaldan uga falcelinaya dhibaatada gabadha Soomaaliyeed loo geystay hase ahaatee ma ahan in lagu ciyaaro ama lagu maadeysto qof isagiiba dhibaataysan waxayna u baahan tahay caawinaad degdeg ah iyadoona u baahan cadaalad waayo ninkii sharaf xumada baday waxa uu maanta dhex mushaaxaya Muqdisho waxaana loo baahan yahay in dadka reer Muqdisho ay u istaagaan gabadha yar ee masaakiinta ay u baahan tahay cadaalad sidoo kalena la horkeeno shaqsigii sida xun ku sameeyay falka xun maxkamadda ka duubay muuqaalada anshaxa xun ee uu ka faafiyay baraha bulshada isku soo wada duuba waxaa muddooyinkii u dambeeyay ay wajahayeen dumarka Soomaaliyeed xaaladaha halis ah kuwaasoo rag ay naftooda ka aaminay ay ka duubayaan muuqaalo anshaxumo qaarkoodna ay ku rikaarteynayaan halka qaarkoodna ay ku faafinayaan baraha bulshada inta badan marar badan ayaa loo diray dumarka Soomaaliyeed inay iska ilaaliyaan muuqaalada laga duubayo laakiinse waxaad moodaa digniinaha inay iska dhagatirayaan oo ay fududaysanayaan muuqaaladan laga duubayo bartan Telegramka ayaa noqotay meel argagaxeeda wadata kaasoo lagu faafinayo muuqaalo anshax xumo markaasina ah dumar Soomaaliyeed oo sharafteedu meel looga dhacayo haddaba waxaa guud ahaan dumarka Soomaaliyeed looga digayaa inay ku dhacaan dabinnada noocan oo kale ah kuwaas oo u dhigayaan rag Soomaaliyeed markaasna ay ka duubayaan muuqaalo anshax xumo kuwaas oo ku faafinaya baraha bulshada sidan barahan caadaystay in ay caybeeyaan dumarka Soomaaliyeed oo laga dhex furtay qolal aad u tiro badan oo ay soo booqanayaan saacadiiba kumanaan qof oo dad kuwaas oo lagu faafinayo ama lagu kala iibsanayo muuqaalada ama fiidiyoyada gabdho Soomaaliyeed haddaba waxa ugu digaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha inay ka digtoonaadaan ragga noocan oo kale ah isla markaana kula kacaya ficilada noocan oo kale ah taasoo ah wax aad looga xumaado isla markaana gabadh Soomaaliyeed oo walaalaheen oo kale ah in sharafteeda meel looga dhaco marka waxa looga digayaa dhammaan guud ahaan dumarka Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan dhacdooyinka noocan oo kale ah ama dabinka noocan oo kale inay ku dhacaan sidoo kale culimada Soomaaliyeed ayaan ugu baaqaynaa
inay arrimahan ay soo farageliyaan isla markaana ay dadka ka wacyigeliyaan dhacdooyinka noocan oo kale ah oo noqday maalmihii ugu dambeeyay ama muddooyinkii ugu dambeeyayba wax iska caadiya kuwaasoo baraha bulshada aad u qabsanayay.